madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa amray in dhammaan shacabka dalkani ku nool la diiwaangeliyo xogtooda iyadoo la adeegsan doono qalab casri ah. amarka madaxweynaha ayaa wuxuu ku saleysan yahay habkii ay dawladdiisu ogaan lahayd aqoonsiga dhabta ah ee shakhsiga muwaadinka iyo midka ajnabiga ah. diiwaangelintani oo hab casri ah loo fulin doono ayaa lagu wadaa in xogta shakhsiga ay ka mid ahaan doonto faraha, codka, DNA-ga, halka uu ku nool yahay, qaab dhismeedka indhaha, dhegaha iyo gacmaha. madaxweynaha ayaa wuxuu sheegay in hanaankani uu yahay mid sahlayo aqoonsiga qofka dalka u dhashay, midka dhalashada dalka qaatay iyo sidoo kale ajaanibta dalka ku nool. diiwaangelintani casriga ah ayaa waxay fursad u noqon doontaa in muwaadin walba uu helo lambar u gaar ah oo ka soo bixi doono qalabka casriga ah loo yaqaano biometric. waxaa sidoo kale lagu wadaa in hadda wixii ka dambeeyo aqoonsiga qaranka, baasaboorka, warqadda dhalashada, laysanka darawalnimada iyo sidoo kale aqoonsiga qaxootiga in hal rug laga maareyn doono. amarka madaxweynaha ayaa waxaa loo arkaa in uu xoojin doono nabadgelyada guud ee dalka xilli ay ka dhaceen tiro falal argagaxisnimo. عبدي warbixintaada waxaa ku jirta in baasaboortka iyo kaarka dhalashada iyo dabcan ID-ga in hadda wixii ka dambeeyay hal meel loogu hagaagi doono. tani maxay uga duwan tahay hababkii hore jiray? hababkii hore waxay uga duwan tahay dabcan kulay aqoonsiga qaranka ama national ID cardka sida loo yaqaan kibaandaha. inta badan qofka wuxuu ka qaataa meeshuu ku dhashay ama meeshuu ku dhashay. driving license-ka waxaad ka soo qaadan kartaa iskuulaad private, laakiin waxaa adiga ku siinaya Kenya Revenue Authority ama waaxda maaragtay canshuur aruurista. marka haddii aad fiirisid, haddii aad dhuuxdeed hadallada madaxweynaha dhinac walba, haddii aad fiirisid waxay ku soo arooreysaa qaabkii guud ahaan loo soo afjari lahaa musuqmaasuqa ka farabatay dalkani. waayo waxa weeyaan kibaandaha dad maaritaan u qalmeen ayaa la siiyaa, baasaboorka, driving license-ka. marka laakiin dawladda ilaa haddeertan maysan shaacinin qaabkan maaragtay haddeertan diiwaangelinta cusub sida looga arrimi doono, sida loo maareyn doono. sababta Caydaruus waddankan waxaa ku nool ugu yaraan 50 milyan oo qof. waqtigii qaadan doonto ilaa haddeertan iyo meeshii wax laga bilaabi lahaa lama shaacinin. marka tani marka ma ka hortag baa dadka hadda sharciyada Kenya si qadan ku qaadan doono, mise waa ka tabatago wixii horay passport, ID, warqad dhalasho ee baxay ayaa la dabagalaya? dadku way isweydiinayaan Cabdi. walaahi kulay arrintaas ma caddo in maaragtay in maaragtay la soo saari doono dadkii si sharci darrida ku qaatay aqoonsiyada Kenya, ha noqdo baasaboorka, ha noqdo warqadda dhalashada. ilaa haddeertan ma caddo, laakiin nuxurka ayaa wuxuu yahay qaabkii loo soo afjari lahaa wax alaali wixii musuqmaasuq, isla markaasna il gaar lagu fiiriyo nabadgelyada guud ee qaranka.